بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa maxamed cabdi caabi shardi agaasimaha xiriirka dadweynaha iyo iibka ee shirkadda Baana Healthcare Technology. Baana Healthcare Technology oo shirkad adeeg caafimaad oo qaab online ku shaqeeya waxay xiriir wada shaqeyn ay leeyihiin ama partner Arkan Leadership and Innovation Hub oo ah shirkad ayadana consultant iyo capacity building dadka u sameeyay traininada. Marka Arkan muddadii hadda aan wada shaqeynaynay ama xiriirka aan lahayn waxyaabo badan ay naga caawisaa jiro oo ah kor u qaadista xirfadda shaqaalaha shirkadda oo u sameysay traininadas waxaa ka mid ah report writing-ka sida agaasimayaasha xafiisyada ee shirkadda ay u qor lahayn report-kooda. waxaa kaloo ka mid ah change management ah hoggaanka iyo qaabka iyo xafiisyadooda u maamuli lahaayeen. trainada kale aan ka helnay waxaa ka mid ahaa capacity building oo loo sameeyay dhammaan shaqaalaha guud si xirfadoodu kor loogu qaado si shaqadooda u noqoto shaqo fiican oo wanaagsan oo proactivity leh. Arkan Leadership and Innovation Hub iyo Baana Healthcare Technology waxay leeyihiin heshiis wada shaqeyn oo dhow oo iska kaashanayaan labada dhinacba sidii loo heli lahaa iskaashi fiican oo iska kaashanayaan dhammaan adeegyada ay wada qabtaan labada dhinacba. runtii marka heshiiskaas iyo iskaashiga dhow aan la leenahay midaan aad ugu faa'iidnay waaye oo kor wax badan oo ka bedelay shirkadda Baana Healthcare Technology. rajaynayna insha Allah inay wada shaqeyn sii socoto ee noqoto si hadda u miro dhashay miro dhalka weyn insha Allah uu soo wada baxo oo ka soo baxo haddii Allah wadal raali ka dhigo. marka guud ahaan waxaan leenahay wada shaqeyntaas waa wada shaqeyn oo labada dhinacba ah oo aadna u weyn waxa hadda aan ka helnay wax ka weyn aan ka filayn. Arkan Leadership and Innovation Hub waxyaabihii ay naga caawisay waxaa ka mid ahaa dhanka tababarada shaqaalaha inay xirfadooda iyo aqoontooda kor loo qaado dhanka shaqada marka la joogo. taasina waxay keentay markii qofkii shaqaaleey la tababaray xirfadiisa kor loo qaaday inuu niyad wanaag iyo niyad fiican la yimaado shaqadii uu si fiican u qabto. taasina waxay company-ga keentay inuu dhaqaale badan iyo income revenue badan uu company-ga soo galo hadafyadu lahaa iyo meeshuu hiigsanayay inuu company-gu gaaro. kuwa kalena hadda uu si dhow yahay. dhibaatada hore noo haysatay waxay ahayd shaqaalihii oo shaqada iyo qof walba roolkiisa aanu cadayn. markii tababarkaan u qabanay tababarka waxyaabay ka faa'iideen waxaa ka mid ahaa inuu qof walba rool uu yeesho lagula xisaabtamo mas'uuliyad uu qaado. taasina waxay keentay inay shirkadda ay kor u soo kacdo productivity ahaan ama wax soo saar ahaan oo meesha ay ka baxdo shaqooyinkii dayacmi jiray ama la isku tuuri jiray. waa dhibaatooyinka hore noo haystay oo markii trainingaas shaqaalaha aan siinay oo Arkan ay noo bixisay oo kadib aan maxay toolay faa'iidadiisa aragnay waaye. guud ahaan Arkan Leadership and Innovation Hub waxyaabihii Baana Healthcare Technology ka taageertay waxaa ka mid ah in xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha kor loo qaado taas oo keentay dhaqaalaha shirkadda Baana Healthcare Technology inuu kor u koro. shaqaalihii markii xirfad la bara oo xirfad fiican yeesho waxaa kor u kordhaya inuu wax soo saarkiisu bato. hadduu wax soo saarkiisu batana waxaa shirkadda soo galaya dhaqaale fiican. marka intaas oo progressive ay shirkaddu sameysay waxaan uga mahad celinaynaa team Arkan Leadership and Innovation Hub. Arkan Leadership and Innovation Hub adeegyadii ay nasisay markaan anagu ahaan aan qiimeynay qiimeynta waxaa noo soo baxay 10kiiba 10. sababtaan ku qodo 10kiiba 10 ku siin waxay ahaayeen ayagoo haysta macallimiin iyo tababarayaal aad u fiican iyo shaqaale shaqadooda loo carbiyay iyo adeeg ay ku siinayeen adeeg aad u qiimo badan oo hufanaha iyo adeegaas waxaa la socday documentation oo asagana oo la socdo documentation aad ugu fiican oo kambaniyada iyo shirkadahana ka caawinaya hadafkay lahaayeen inay gaaraan. marka runaantii waxaan leenahay guud ahaan adeeg ay bixinayaan adeeg aad u fiican waaye baahina loo qabo. taasina waxay keenaysaa dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed inay shaqaalahooda iyo xirfadooda kor loo qaado. mar haddii shaqaalihii iyo tababarkooda iyo xirfadooda kor loo qaadana shirkaduhu dhaqaale fiican ayay soo hoynayaan. hadduu dhaqaalaha shirkaduna kor u kacana waddanka dhaqaalihiisa koraya. waddanka dhaqaalihiisa hadduu korana cayrtii dibadda uu ku tirsanaa ayuu ka baxaya dalku dal isku filan uu noqonaya. marka roolkaasay qayb weyn ka qaadanayaan Arkan waana ugu mahad celinaynaa hawsha fiican ee dalka iyo dadkaba u hayaan.